kulankan geekiyo weeldadeen guddiga doorashooyinka xilligan ee guddigii hore maybayo ka shal wareegsadayna walaagay macluumaad iyo dukumeentiyaha ee hore iyo qobadeen guddigii hore ee doorashooyinka madaxtinimada Koonfur Galbeed Soomaaliya maybana goobro ku ahaayay gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Cirfe Ibrahim Aadan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Shaacir Umar Bayle ee xubno kale oo ku tirsan guddiga doorashooyinka gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Cirfe Ibrahim Aadan iyagu horeen wareejiyay walaagay macluumaad ay horeen qobadeen maybana isku wareejiyay gudoomiyaha cusub ee guddiga doorashooyinka Shaacir Umar Bayle gudoomiyihii hore guddiga doorashada Cirfe Ibrahim Aadan waliba wareejiyay dukumeentiyalkii guddigii hore doorashada wali ka wareejiyay gudoomiyihii guddiga doorashada oo hadda ay Shaacir Umar Bayle ee ka wareejiyay oo la wareeg guddigii hore iyo guddigii damba waliba la shal wareeganay qalabadii walaayuna hoole una qabanay oo dukumeentiyal hay iyo la shal wareeganay marka waliba la shal wareegnay safayla oo habsami ay la shal wareegnay marka oo niifiyaan ka jarta marka alxamdulillah ilaahay aan ka mahadnaqaana gudoomiyaha doorashooyinka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shaacir Umar Bayle iyo dhanka kiishay ku mahadnaqay sida sharaftii wanaaga badan ee gudoomiyahii hore ee guddiga doorashooyinka ku wareejay macluumaadka leen ku baahanay maadaama golo baarlamaanka iyo ansixiyeen in la ku siiyaan baqaada howlo iyo qobadeen guddigii hore ee doorashooyinka marka xigtan waxa mahad iska leh guddigii hore ee gudoomiyihii hore ee guddiga doorashada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cirfe Ibrahim Aadan maanta si rasmi ah ugu wareejiyay wixii agab ay ku shaqeynayeen anoo ah gudoomiyaha cusub guddiga doorashada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shaacir Umar Bayle waan uga mahad celinayna shaqadii wanaagsaneed ay soo qabteen aad ay u mahadsan yihiin annaga waxaan leenahay ilaahay hanu garab galo waan dadaalina insha Allah hadii ilaahay naftuna disto guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku guda jara sidii aan dhameystir lahaayeen howlo doorashooyinka isla markaasina iyo dheel lahaaytay doorashada ka wada qanacsanayay Maxamed Nuur Maxamed Cabdullaahi telefishinka caalamiga ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Baydhabo.